ayuu u dhexeeyaa weli A iyo B waan isticmaalaynaa laba qof ayaa wada sheekaysanayso. Marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay qaabka loo weydiiyo qofka asxaabta aad tihiin ama saaxiibada aad manaha muddo aad is arkin, marka qaabkaad u wareysan lahayd inteed ku maqaneed maxaa ku helay. Marka qaabkaas ayuu ku saabsan yahay. Marka saaxiibkaaga sidaad u wareysan lahayd, xaaladdiisa aad u ogaan lahayd ayuu ku saabsan yahay. Marka laba saaxiibo muddo kala maqaneed ayaa meeshan isku wareysanayso. Marka maxaa la dhihi jiray casharkan aad buu muhiim u yahay. Marka baro sida saaxiibkaada aad maxaa la dhihi jiray aad u wareysan lahayd, xaaladdiisa aad u ogaan lahayd. Marka casharka ayaan fadlan hadday tahay marka ugu horeysa aad soo booqato channelkeena, subscribe star, furo gambaleelka si aysan kuu dhaafin casharada si maalinle aan u soo gelino. La wadaag asxaabtaada, waadna ku mahadsantihiin dhammaan. casharkan labadaas qof ayuu u dhexeeyaa. Marka casharkii af Soomaali aan ku fasiraynaa. Marka casharka sidan ayuu isu dhacayaa. Conversation. Marka conversation between two person. Casharkan waa wada hadal u dhexeeya laba qof. Marka labada qofna A iyo P ayaan u wadanaa. Marka san ayuu ku bilaawday. A ayaa waxaa dhahday marka hello Ali. Ali sida taaman. Hi Halima. Sanuk salaam Halima. Sida tahay. Marka wuxuu dhahay how have you been? How have you been? How have you been bay tiri. Halkee ahayd maalmahan mana halkeed ku maqnayd. How have you been? Marka halkee ahayd halkee ku maqnayd maalmahan kuma arag amal maalmahan kuma arag amal. Marka wuxuu dhahay I'm not too good. Aad uma wanaagsaneen caafimaad ahaanteyda ma fiicneen buu dhahay. I'm not too good ma fiicneen ama aad uma wanaagsaneen. Why? Marka waxay weydiisay why ba weydiisay. Marka gabar marka waxay tiri why sababta aad u fiicneen maxay tahay. I'm sick buu dhahay marka waan xanuunsaday. Waan xanuunsanaa. I'm sick waan xanuunsaday ama waan xanuunsanaa. Marka waxay tiri sorry to hear that. Aad baan ugu xumahay inaan arrintaa maqlo. Arrintaa inaan maqlo aad baan ugu xumahay. Marka B wuxuu yiri it's okay waa caadi. It's not too serious. Ma ahan arrin aad u xun mana xanuun aad u xun. Ima qabanin buu dhahay arrinteeda waxa arrin iska degan bay ahayd. Marka wuxuu dhahay that's good. Marka waxay tiri that's good. waa arrin fiican. How is your wife? Naagtaada ka horayda. Naagtaada say tahay. She is good. Buu dhahay marka way fiican tahay. She is good. Way fiican tahay. Is she in America now? Is she in America now? Ma America joogtaa? Ma America weli joogtaa? Marka wuxuu dhahay no she is not here yet. Weli America ma imaanin. America weli ma joogto. Ma imaanin. America weli ma joogto. Marka waxaa la weydiiyay marka ayaa waxaa weydiisay where is she? Halkee jirtaa? Where is she? Halkee jirtaa? She is in Canada with our kids. Canada ayay ku maqan tahay ayadii caruurteena Canada ayay jiraan. I see bay tiri okay waan arkaa camal waan gartay. I have to go now. Waa inaan baxaa hadda ay tiri. Please tell fadlan u sheeg your wife naagtaada I say hi. Waan soo salaamay camal laga wada I say hi. Marka inaan soo salaamay camal igu sheeg naagtaada. Okay buu dhahay marka okay waan u sheegayaa. I will talk to you later. Mar dambe ayaan wada hadli doonaa. War dambe ayaan kula soo hadli doonaa uu yiri. Marka waxay tiri gabadhii waxay tiri hope you feel better. Aad waxaan u rajeynayaa inaad dareentid caafimaad camal. You feel better wanaag caafimaad aad dareentid baan u rajeynayaa. Thanks waadna mahadsantahay u dhahay isna. Thanks waa mahadsantahay. Marka casharkan wuxuu u dhahay laba saaxiibo muddooyin kala maqnaa is wareysanayo. Marka labadaas qof waxa waa Ali iyo Halima. Marka A iyo P na asal dadka ahaan aan wadanaa. Marka maxaa la dhihi jiray Ali ay hadalka bilaabay markuu dhahay hello Ali Halima hadalka bilowday. Ali waxay ku tiri hello Ali sida tahay. Hi Halima bay wadaasna. Halima hi sida tahay. Marka how have you been? Halkeed ku maqnayd. How have you been? Halkeed ahayd. Halkeed jirtay. Intaas waa loo isticmaalaa marka halkeed ku maqnayd. Marka dhis qof saaxiibkaada dad ku maqnayd. Waxaa isticmaalaa how have you been these days? Halkee maalmahan ku maqnayd camal. Marka how have you been? Halkeed ku maqnayd calam su'aal baa gadaal ka raacsan. Marka wuxuu yiri P baa u jawaabay I'm not too good. Aad uma wanaagsaneen buu dhahay. I'm not too good.
caafimaad ahaanteeda minaa ma wanaagsaneen. Why ayaa weydiisay. Ayaa waxay tiri why sabab. I'm sick buu dhahay. I'm sick waa xanuunsanahay. I'm sick waa xanuunsanahay. marka waxay tiri sorry to hear that. in arrinta maqla aad baan ugu xumahay. It's okay waa caadi. It's not too serious wax aad mina dhib u leh ma ahayn xanuunkayga wax dhib leh ma ahayn. She is good marka xanuunkayga wax dhib leh ma ahayn. marka waxay weydiisay that's good aad bay u fiican tahay arrintaas waa arrin wanaagsan. How's your wife naagtaas say tahay. She is good way fiican tahay. Is she in America now ma weli America joogtaa. Is she in America now ma America weli joogtaa. muxuu jawaab marka now she is not here yet weli ma joogto America weli ma imaan. Where's she marka waa halkee jirtaa. Where's she halkee jirtaa. She is in Canada with our kids. Canada ayay jirtaa caruurteeni iyo ayada kamid weyn. I see bay tiri waan arkaa. Okay waan gartay ama laga wadaa. I have to go now bay tiri hadda waa inaan tagaa. I have to go now waa inaan tagaa hadda. Please tell your wife fadlan u sheeg naagtaada. I say hi waxaan soo dhahay waan soo salaamay inaan soo salaamay igu sheeg naagtaada. markuu okay waan u sheegay camal okay waa ogolaaday. I will talk to you later mar dambe ayaan kula soo hadli doonaa uu dhahay. marka I will talk to you later mar dambe waan kula soo hadli doonaa. waxaan wada hadli doonaa ayuu dhahay. marka hope you feel better bay tiri waxaan ku rajaynayaa inaad caafimaad dareemaysid. marka wuxuu dhahay thanks aad bay u mahadsan tahay. marka cashirkeena cashir aad u macaan waaye. laba qof ayuu u dhexeeyaa conversation. marka laba saaxiib wiil iyo gabar buu u dhexeeyaa. marka sidaas ayuu u dhacaa cashirka. marka labada qof oo muddo aan sarkin ba is wareysanayay. marka waxaa ka wareysanaysay caafimaadkiisii, naagtiisii, caruurtiisa halkay joogaan iyo sida uu ahaan doono iyo waxay u rajeynaysa. marka waxaan filayaa in cashirkan si fiican aad ugu bogan doontaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gudagalaynaa marka hore casharka lafiis as English ayaan ku akhrinayaa. kadib ayaan dul mari doonaa af Soomaaliya. marka insha Allah waa ardayda inta badan waxay nagu socodsan inaan English ahaan aan ugu akhrino si ay u dhageystaan. marka kadib aan af Soomaaliya u fasiraynaa af Soomaali English insha Allah. sidan ayaan cashirkan bilaabanayo. Conversation between two persons. So the two persons A and B. Conversation. A. Hello Ali. Hi Halima. How have you been? I'm not too good. Why? I'm sick. Sorry to hear that. It's okay. It's not serious. That's good. How's your wife? She's good. Is she in America now? No, she's not there yet. She's not here yet. No, she's not here yet. Where's she? She's in Canada with our kids. I see. I have to go now. Please tell your wife say hi. I say hi. Okay. I will talk to you later. Hope you feel better. Thanks.